meydad hor leh oo shabaab ah ayaa weli laga soo saarayaa hawdka deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose. Askari Somaliland ka tirsan jaajuus ahaan ayay u soo qabteen ciidamada SSC Khaatumo. Gacan ku dhiigle maalinimadii Jimcaha ahayd macallin ku dilay deegaanka ama gobolka Mudugna gacanta ayaa lagu soo dhigay. Saaxiibayaal soo dhawaada waxaana Cumar Guux warbixintan ayaan doonaynaa halkan idin kula wadaago. Haddii uu muuqaalkiisa soo gaaray si shirkad oo saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtideena noogu reebo mar kale soo dhawaada. Aynu ku bilownay duleedka deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose ee dawlad goboleedka Jubbaland weli waxaa laga soo saarayaa meydadka rag dagaalamayaal ah oo shabaab ah kuwaasi oo dagaal xoogan la galay ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan guutada Birjeex ee saldhigooda uu yahay Buule Xaaji. ciidamada militariga howlgal kooban oo ay maanta sameeyeen waxa ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen 3 ruux oo iyagu nolol lagu hayay laakiin ku jiray hawdka deegaanka Buule Xaaji oo dagaal kooban oo halkaas ka dhacay. laba kamid ah ay dileen dagaalamayaashaas halka midka kalena ay dhaawaceen. waxaana la tilmaamay in labada meyd iyo sidoo kale qoryahoodii la soo qaaday sidoo kalena midka dhaawaca xilligan uu yaalo xarun caafimaad oo ku taala deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose ee dawlad goboleedka Jubbaland. sidoo kale ciidamadu waxa ay sheegeen in rag dagaalamayaal ah oo ay ku daba jiraan oo maalmihii la soo dhaafay iyagana la tilmaamay in halkaas ay soo galeen oo ay baadigoobayaan rag ka maqan iyo qoryo sida la tilmaamay oo xoguhu ay sheegayaan. ciidamada Birjeex ayaa weli ku sugan halkaas iyaga oo mararka qaarkood howlgal la sameeya. aynu aadno dhinaca Khaatumo. SSC Khaatumo ciidamadeeda difaaca waxa ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen ninkan sawirkiisa idin muuqda oo ay tilmaameen inuu yahay nin sahan u ahaa ciidamada Somaliland ee ku sugan duleedka deegaanadaas kuwaasi oo dhawaan laga saaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wararku waxa ay sheegayaan sidoo kalena xoguhu ay tilmaamayaan in ciidamadana gacanta ku soo dhigeen ninkan xilli uu ku jiray roondo sida la tilmaamay oo ay saraakiishu sheegeen iyada oo waliba nin ku hayay saldhigyada iyo fariisimaha waaweyn ee ciidamada difaaca SSC Khaatumo ay ku leeyihiin xuduudda labada gobol ee Somaliland iyo sidoo kale ee SSC Khaatumo intaba. waxa ay keeneen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyaga oo sheegay in xabsiga la dhigay kadibna la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh qaadista dacwadda ninkan sahanka u ahaa ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan duleedka Laascaanood iyo deegaanada kale ee gobolkaasi Sanaag iyo meelo kale oo dhowr ah intaba. dhinaca kalena gobolka Mudug dhawaan waxaa dil loogu geystay Allah u naxariistay macallin sidoo kalena ahaa maamule iskuul sidoo kalena ahaa imaam masjid kaasi oo uu dilay Allah u naxariistay ama magaciisa lagu sheegay Xamse Muuse Ducaale kana mid ahaa barayaasha ku sugan gudaha magaaladaasi ama deegaan lagu magacaabo Seemade oo hoostaga degmada Jarriiban ee gobolka Mudug dhinaca maamulka Puntland. waxaana la tilmaamay ninkan in khilaaf uu kala dhaxeeyay maamulaha ugu dambeynna maalinimada Jimcaha ahayd markii uu salaada ka soo baxay oo halkaas uu khudbada ku akhriyay kadib uu dil u geystay isaga oo goobta ka baxsaday gacan ku dhiglaha. maanta taliska booliska gobolka Mudug qaybta maamulka Puntland waxa ay tilmaameen oo ay shaaciyeen waliba soona bandhigeen sawirkan idin muuqda oo ay sheegeen ninka gacan ku dhiglaha ah ee eedeysanaha ah. magaciisa waxaa lagu sheegay Axmed Maxamuud Maxamed waxaana uu kamid ahaa raggii la baadigoobayay ee xilligan ama maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa duleedka magaalada ama degmada Jarriiban ee gobolka Mudug dhinaca maamulka Puntland. ugu dambeyn ciidamada ammaanka gobolka Mudug ayaana gacanta ku soo dhigay oo hadda waxa uu ku jira xabsiga dhexe magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaas iyadoo ciidamada ammaanka ay uga mahadceliyeen bulshada ku dhaqan degmadaas iyo deegaanada kale gaar ahaan deegaanka dilka uu ka dhacay ee Seemade ee uu macallinka ku dilay.